السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaad walaalahay qaaliga meel walba joogtaan channelka naga daawanaysan waa Faaduma Filsan. qofka idin la hadlay waa aniga Faaduma Filsana. waxaana la joogta Raxma soo dhawow. waan dhawaa baay adiga asxaabtaada aad baan idin salaamay. waanu ka qaadnay soo dhawaada meel kasta joogtaan. waxaan dirajinaynaa inaad caafimaad qabtaan anagana sidoo kale alxamdulillah rabbil caalamiin. hadday tahay markii koobaad aad soo booqato si xishmad leh waxaan kaaga codsanaynaa subscribe-ta noo saar, like-ta dhac noogu sii, commentiga ra'yigaaga ku soo qoro. minankaaga weeye. soo dhawow. waxaan ka hadli rabnaa barnaamij ah dhalinyarada. horta haddaad tahay qof reer leh iska sii soco ku daahin. dhalinyarada ayaan ka hadli rabnaa iyo jacaylka qaybihiisa duwan oo kala duwan. taasaan rabnaa caawa inaan ka hadalno. dhalinyarada markay kow ay soo kacaan guurka degdega ah iyo intii dhaqso adigu la isguursado marka hore xiisaha iyo jacaylka la isku guursado haddana dhaqso lagu kala tegayo oo furitaanku iska noqday wax iska easy aho wax aan qiimo weyn sii lahayn uu iska noqday. kaasaan rabnaa caawa inaan ka hadalno. mar haddii marka hore lagu degdego guurka marka dambe waa laga degdegaa oo waa lagu kala yaacaa. soomaalidu waxay dhahaan geedkii orod lagu koro orod baa looga soo degaa. saasay dhahaan. Soomaalida horta waxaa layidhi been ma mahmaahdo been bay sheegtaa. been ma mahmaahdo laakiin been bay sheegtaa baa la dhahaa. waa run. aad iyo aad saasaa si weyna. marka waxaan leenahay dhalinyarada ma aragtay markii horta aad ama dhalinyaro ah oo adigu agekaad rabtaba ku jir markaad rabto kow aad qof jeclaato ilan qofka marmuu jacayl galaa markaad jacayl uu ku galaad adigu isdhahdo dee waxbaad jeclaatay qofkaad jeclaatay ababa intaad dhahda jacaylkaa u sheegin oo haddaan u sheegin hada qofka ma orkubaala qofka markaad jeclaado waa inaan dhabku siiya waa kaa helay waana ku jecla su qofka igu ogaanaya inaan jecla haddaan u sheegin orkubaala idimaha qofka mar haddaan jeclaaday waa inaan u sheegaa aboo macaan waaba kaa helay balka saasad leedahay dee haa dabcan haddaan muxuu igu ogaanaya qofku ila waxaa la rabaa qofka inuu ogaado jacaylkaaga inkastoo degdeguna uuna fiicnayn dee haddana naftaaba kudhihi u sheegaba dee kaba soo qaad ma aha inaad u sheegto sababtoo ah marka hore waa inaad markaad adigu wax jeclaato aad adigu dib isugu noqoto waa inaad adigu soo fakerto oo maskaxdaada la sheekaysato oo adiga aad iska soo qaado qofka ila mustaqbala haddaad qofka isba jeclaato mustaqbalna waa ku xigaa moogta oo isguursanaysiin. marka waa inaad ka fakerto jacaylka marbuu iska dhammaanaya. jacaylku waa wax iska yar. waa run. marka dhibaatooyinka xaqiiqada horta maba dhammaadaba laakiin haddana naftu markay wax jeclaato kama gaadha inay ka tashato waxaasoo dhan qofkii ugu yaraan haddaad afka uga sheekayn u sheegin wuuba ku garanba inaad jeceshahay. indhahagaa laga diray maxaa la dhihi jiray marka iska sheegista qofciyo jacayl midna isma qarin midna ma qarsoono xaqiiqtaas ah. maya anigu saa kama wado micnaha forever kama wado. waxaan ka wadaa marka hore inaad adiga dib isugu laabato aad soo fakerto aad horta dhaqamadaadi aad wax badan kasoo bedesho si aad isaga soo dhigto dee qof mas-uul ahoo maxaa dhihi jiray mas-uuliyadda haddaad dumar tahay iyo haddaad rag tahayba qof mas-uulnimada qaadi kara. mar haddaad weynaato ood qof weyn tahay waad ka fekeraysaa laakiin saan hadalkaaga hore ka dhalansaday waxaa tiri dhalinyarada markaa tahay dadka dhalinyarada in badan bay dhalinyarada wax ka boodaan u dhaafo 20 uuna gaadhin kama fekerayo maxaa ka hor yaala maxaa kaa dambayn imaanaya maxaa kama fekerayo wuxuu ka fekeraya just inuu qofkan jecel yahay jacaylkiisana u sheegto wax kastoo kala kulmayana kama fekerayo intaasunbuu ka fekerayaa run waayo aad iyo aad. marka laakiin markaad qof weyn tahay waad ka fekeraysaa aad caqliyaysato 20 ku gaadha inannimo dee markaas khibrad waxaa laga yaabaa inaad ka warwareegto astiraadid kuuma qalmo jacaylkaaga dib isugu noqonaysa markaa waad fekeraysa waxaad leedahay jacaylkaaga horta halkan dhigo qofkan makuu qalmaa maxay kale qof aad isu qaadi karta ma yahay qof aad nolol la wadaagi karta ma qof mustaqballo meel gaarsiinay ma yahay laakiin markaad yar tahay dee marka fekeraysa jacayl keliyan baa kuu muuqanaya waana waxaad keenaya furitaanka badan keenaya. hadda su-aalku weydi weliga qof ma jeclaan anigu jacaylkaba waa ka xanaaqaa dee marka waxba kama taqaanin maxaad kaga hadla marka qofaan noloshiisi waxba jeclaanin inuu sheeko jacayl ka hadlo waaba qalad dembi baad ku jirtaa. maya isba ma aha qofka jacayl xataa haddaad aragto jacaylka ma ogtahay ma aha inuu adiga jacaylka dhan ku soo maro
asxaabtaadaad ka arki kartaa dhibaatooyin badan oo dad ku sameeyaad arki kartaa laakiin qof aan dad xataa waxaad arki kartaa sariir u saaran maya tusaale qof dhakhtar oo doctoor ah hadduu weligii doctoor la noolaa ma noqon karo doctoor waa inuu waxaan barto oo cilmi u yeesho oo akhristo weeyaan laakiin dhaqanku ka weli weligaa tahay ama saaxiib la tahay dhakhtar ma noqonaysid adiga haddii aan jacayl kugu dhicin ama waxaan qabaa fikirkaas yaa inaad horta jacaylka ka barato hadduusan horay kugu dhicin maya jacaylka degdega ah waa khalad bo laakiin adiga ku dheer baa kugu dhacaa malayn ku degdega kuguma dhicin aniga waad igu soo kala firaysay adiga haddaa su-aalku weydiiyo anigu jacaylka waaba ka xanaaqabanku waa iska baloogay meel baa saaray adiga haddaa midku weydiiyo kasoo qaad qofa isjeceshihiin adigu waad jeceshahay qofkaas isagana wuu ku jecel yahay laakiin labadiina waad kala baqdiin deerta soomaalida waxay ku mamada indha jacayl isma eegi karaanba indha jacayl isma eegaan qofka aad jecesha soo asagoo dhib si dhaba hadduu kuu jecel yahay yacni kumaba dhiiranaysidba waxaad ka fakeraysaa 12 maanta markaad guriga joogtid oo kale waxaad ku dhihi lahayd markaad aragtaan ama bariis aragtaan waxaa ku dhe saa ku dhe hodhow markaad qofka aragtid uu kaa buruud sarreeyaa waaba ilowda wixii ma dhihi kartidba bas waaba marka hadda adigu jacaylkaaga saa ma ku weyn lahayd mise waad u sheegi lahayd waxaad dhihi lahayd bal asagu hadduu wax garan waayo saa u meeraysanayo aduun waxbaa ka dhudhuumanne iskaga sheeg ma dhihi lahayd marka dumarkeena Soomaaliyeed khayr badan Allah siiyo intay 100% jacaylkooda way qariyaan laakiin waa laga dareemaa haddana saasoo waa laga dareemaa ninku hadduu kaa dareemo jacaylkana waxaa laga yaabaa inuu kaasi fogaado oo kaaba si cararo oo kaasi cararo nin Soomaaliyeed laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah hadda ninka aragto adaan ma arag bal laakiin Soomaalida hadday kaa dareemaan been waxba kuma falay hadday kaa dareemaan waa kaa dhaqaajinayaan is adkeyntas adkeyn karin waba ka sax taasaa run ah waxaad jacaylka iyaaban la sheegan kuwayle kuwa weligeeda control lama yeelinaysid inta badan kuma dhiiranaysid inaad kaado qofka waan ku jeclahay laakiin waa lagaa dareemaya just hadduu kaa dareemo qofkaasina wuu kaa dhaqaaqaya marka waxaa la rabaa inaad meel dhexaad iska dhigtid aniga hadda shaqsi baan ahay waan jeclaaday wax laakiin weligay haddana qofkan jeclaaday kuma dhihin waan ku jeclaha dama waa khalad maaha qofka haddaad adigu jecel tahay oo asagu uusan dee aadba kuu danaynaynin way kugu adkaanaysaa laakiin qofka markaad isjeceshihiin markuu ku dhaho dee I love you miya wax la dhihi jira adna waad dhihi dee tuu iyo muuti I love you waka I love you tuu waa lagu celina miya wallahi bilcaa waxaan ku yidhi sheeka jacaylayn baa ka dhacday marka wicitaanka oo adan kantaroolka qofkii la hadlaysa mar walba xageed joogtaa hadda waxaan garanaya jacaylkaygii koobaad meherad buu geedi jiray mar walba meheradda in aniga wax layga diraan jeclaa maxaa loo baahan yahay maxaan soo gadaa anaa dooni mar walba inaan soo arkaan jeclaan allah wallahi bilahi jacaylka horta waa cajiib marka laakiin jacaylka waxaa la dhahaa jacaylku laba u qaybsamaa baa layi jacayl waa jacayl iska caadi ah oo laba qof waxaa jira iyagu isjecel laakiin haddana just kan hadduu xanaaqo ka kale uu xanaaqo walaala mid baan jacaylka runta ana jacaylka dhabta ah labada qof kama wada dhexeeyaba labada qof dhab ah isma jeclaadaan waxa weeyaan mid baa wax jecel midna lama jecla midna waxaa laga yaaba inuu ku ixtiraamo inuu xiisa kuu qabo inuu ku danaynayo laakiin jacaylka aad adigu u qabtay uuna kuu qabin inuu asagu kuu qabin laakiin waxaa dhaha qofka jacaylka runta ah kuu qabo waxaa leeyahy waa qofka xataa markaad khaldan tahay adigoo khaldan maya wuxuu ku leeyahy wuu ku arkaa inaad khaldan tahay wuxuu ku leeyahay waad khaldan tahay waa sax laakiin adigioo khaldan buu isagii ku raali gelinaya haddii wuxuu ku leeyahy iska raali ahow xanaaqaaga anigu ma rabo moogta xanaaqaaga idhiba ayuu taagan yahay waxba kama sheegi karo waayo dadka inta badan ka hadla saasay sheegaan waxaan qabaa laba ruux oo si dhaba isu jecel inayna badnaynba marka ama inanku wax jecel yahay ama inantu wax jeceshahay ama maxay tolay waxoogaa maaragtay laakiin laba ruux oo si dhaba isu jecel way yar tahayba xabad weeye xabad weeye intaana ilaahay isu barakeeyo inta kale maqmaqana ilaahay ha isu keeno maxaa dhiila marka guurka degdega ha laga fiirsado guurka degdega boqolkiiba boqol ka fiirsada aniga ugu yaraan intaan qofkaas
ugu yaraan 2 sano ma 2 years oo laba cunug baaba dhalay intaasi maxaa kugu dhacay maya qofka marka hore horta fiir inaa qofka dhaqankiisa ma qofka maarta markaad in badan aad qofka aad maxaa dhihi jiray aad isla socotaan isla hadashaan 2 sano hadda qofkan isjeclaataan 2 sano hadda jacayl uu dhamaanayaa iyadoo guriga maya hadda jacaylkaba ma aha qofkan fiir waa inaad wax badan ka soo ogaato dhaqamadiisa xataa wax badan waa dabeecadihiisa wax badan inaad soo ogaato wey qofkii adigoo khibrad u leh inaad isguursataan waayo sanadku ma baratid ay Soomaalidu ku mahmahdaan qofkan marka hore hadduu ku qanciyo isteel ahaan haddana dabeecad ahaan haddana muxuu taray diineen saddexdaa shay haddaad qofka ku qaadato maxaa dhimana kale qofka markaad aragto qacda hore aad ka hesho qaabkiisa marka dambana dabeecadiisa aad ka hesho oo dee bilowba noqoy beerta dhegeyso marka saddexaadna historygiisa iyo maaragtay dee qof ku qalmo oo kale inkastoo qofka hadduu islaam yahay mar kastaba dee uu ku qalmo haddana Soomaalidu waxoogaagu way jirtaa ya waxbay sheegaan Soomaalidu waxaas waxba kama jiraan jacayl gaab iyo waxay sheegaan waxaas waxba kama jiraan muhiimadu jacaylku indhamada jacaylkii waa tii xamarba lagu dilay wiilba aabihii adeerkiiba ku waayay maya jacaylku sidiisaba indha ma qabo qofka hadduu qof uu si runa u jeclaado wuu ka daba lumi karaa ilaa uu qofka jacaylkiisu kasoo dhammaado laakiin jacaylku wuu dhammaadaa anigu taasaan aaminsanahay anigu waxaan aaminsanahay ugu badnaan inuu qofka 6 bilood lagula sheekaysto 6 bilood 6 bilood أنا 6 bilood إلى waayo 6 bilood wax ka badan badan baan qabsan lahaa hadduu qofkan qof dabeecadiisa fiiri waxaa jira dad inta badan dabeecadooda aad dhaqso ogaan karin moogta haddaad muddo badan la socoto le dabeecadooda runta aad ogaan kartaa waxaa laga yaabaa qof aad u dabeecad xun inuu yahay deedna markaad markiiba iska guursato qofka hadduu 6 bilood dabeecadiisa xun iga qariyo intiisa wanaagsan keliya uu i tuso waxa weeye hodhowna wuu ii dul qaadanayaayo intii xumeyd oo dhan wuu qarin karaa ma qarin karo maya hadda waxa la isku diiday ee dadku ay dumarkii wiilashu isaga hor yimaadaan inta badan waa markay isku soo boodaan waa ka helay ma kaa heshay ma iga heshay waan kaa helay anna waan kaa helay hay iskursin hawsha ma lagu dhaqaaqay intaa yar la sheekaysanayna mid walba ka kale wuxuu isaga dhigayay inaan nabi saleebaan kaale arag wuxuu isaga dhigayay qof aan heli karin intiisa fiican uu tusay hodhow laakiin dhabti baa imaanaysa waa lays arkayaa marka haddii laakiin ilaa ugu yaraan 6 bilood aad la sheekaysato sheeko welibana fiican oo dee xidhiidh caadi ah oo maalinta ugu yaraan 2 saac oo kale aad wada sheekaysanaysaan ama wada imaada ama isu imaada ama maxay tahay kala maqnaadoobe waad baranaysa qofka dabeecadiisa isuma kaa qarin karayo marka dee 6 bilood ka badani waqti dhumis baad leedahay weeyaan saaid على كل حال أنا أصحابته وحن أديت بني سلامية أو قبضنا أنا مرتي جورجيد وجوهاي مرتي ده أنا نقدر كنت لقي لنا ده مرتي مركب بالإذن كنا فكر كنا كسر ديبته جورك لبض أنا اللي استوصى أنا إيه كان مرتي فضل اللحدة بلاد فضل ما هني ما فضل بلده وكذا أو معناها اللحدة بلاد واحد قسم اللحدة بلاد لا شن بلاد قف كده عايز تكبر الناس عادل بسم الله إله هذو خيرية هي waafaji ama mar kastaba ilaa uu waafaji waayo laakiin aan waxaan aaminsanahay inta badani in dabeecado badan iyo waxyaalaha la iska dhalinyaradu markay isjecel yihiin ma xasuustaan horta ilaa hadduu khayr yahay iyo hadduu baahan moogtahay walle waa jacayl badan qofkaasaad ku yeeloodin baad raali wadaa hodhow markaad guursatay waxoogaa khaladaad adeertaad dhihi kan kamaad istiqaaraysaninba kan waxaan ku yidhi waad ku sahalgaadantay dad badan haddana waxaad arkaysaa ku dhihi istikaaradii baaba ragga iga caydhinaysaba سبحان الله وحاس وخلده ممكن تجعليه وحلا يوم خير بوها سما دد إلهي ترى صارت ترى إله هدو خير إيه هي وافت هدو صن خير إيه هاي نتعايل كستانو قوي إله وشركي سيجدو إلهي ده وترى صارت ما ضيع عين مرة نينك أتشعل هدو كعرنا دواير وعلبك ما خير كمهين أحمد زيد خير كجر إلهي بقرنا ياك الله يرد استخارة وكعران استخارستا يركك استخارستا أوكي أصحابي dood waa idinku sii dheerayna iska raalli ahaada marka khayr baan idin rajeynayna